waa kuma Corneyl Maxamed Al-Mansouri sarkaalkii ugu sarreeyay Imaaraadka ee lagu dilay weerarkii Muqdisho sida uu BBC-da u sheegay khabiir ammaan iyo sirdoon oo magaciisa diiday in la shaaciyo ayaa xusay in Corneyl Maxamed Al-Mansouri uu ahaa ninka ugu sarreeya qorshaha Imaaraadka ee Soomaaliya isagoo sida uu xusay Soomaaliya loo soo diray bilowgii muddo xileedka xilligan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sarkaalkan ayaa sheegay in Al-Mansouri uu ka mid ahaa sirdoonka ciidanka militariga ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta uuna yahay nin awood u leh fulinta qorsheynta iyo dhaqangelinta qorshayaasha Imaaraadka ee Soomaaliya kaasoo leh awood gaar ah wuxuu leeyahay awood dhaafsan askari darajo leh darajadiisa sida ka muuqata waranta officer halkaas oo ah qof loo xilsaaray shaqo cayimaan darajadaas cida qabta waa saraakiisha gaarta darajada ciidan ee gaashaanle dhexe ilaa gaashaanle sare wuxuu leeyahay awood fulineed oo leh mid farsamo iyo mid xeelad labadaba ayuu BBC-da u sheegay sarkaalkan wuxuu intaa ku daray in xogta uu hayo ay tahay in sidoo kale Maxamed Al-Mansouri uu booqday xarunta ciidanka PMPF ee Puntland oo xaruntoodu ku taal magaalada Boosaaso iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya Mursal Maxamuud Sanay agaasimaha macadka Heritage ayaa BBC-da u sheegay in waxa dhacay ay muujinayso inuu jiro dayac weyn oo amni oo u baahan in lagula xisaabtamo ciddii mas'uuliyadda lahayd ha noqdeen Soomaali ama Imaaraatiyiin waa in la sameeyaa isla xisaabtan dhab ah